kusoo dhaw axmed shiikhu barnaamijkeena kubixinta ganacsiga ee telefishinka royal t v ahlan wasahlan axmed shiikh ahlan wasahlan wa marxaba tv-ga royal oo na soo booqday maanta shirkadda shiikhu winkal waana ku mahadsantihiin booqashada aad na soo booqateen haddana kusoo dhawaada shirkadda gudaheeda baqaarka inaad aragtaan waxyaalaha meesha aan ku hayno waxaan dejino waxaan dhoofinaba marka axmed shiikhu maxaad qabataa shirkadaada maxay qabataa shiikhu winkal sidee horta u shaqaysaa ma noo sheegi kartaa axmed shiikhu بسم الله الرحمن الرحيم شركة شيخو وينكل وشركة اكسبورت امبورتا وخاصة اي كديرتا هاي علابها الصومالية وين او ودنك iyo dalka Yurub degan ay wax siiso marka shirkadda hadda waxay leedahay oo kale dukaamo kale ay wadanka magaalada Tilburg ay ku leedahay sida dukaanka ugu horeeyay oo shirkadda laga furay oo ah Bester Drink ka soo horjeedka suuqa Arbacada qofka Soomaalida yaqaan wadanka Netherland iyo Tilburg waa garanayaan dukaanka kalena wuxuu ku yaalaa Tilburg North sida Northka waa rugta Soomaalida oo loo yaqaan Ferdi Blaine axmed shiikhu goormaad aasaastay shirkaddan shiikhu winkels shirkaddan shiikhu winkal waxaan aasaasay sanadka markuu ahaa 2003 marka shirkadda waxaa la oran jiray waqtigaas shiikhu raydanta winkal macnaha shiikhu raydanta winkal waxay ka dhigan tahay dukaanka macnaha Soomaaliyan haddii loo bedelo dukaanka wareega dukaanka wareega Soomaali waqtigaas dukaamo ma jirin Soomaalida dukaan kuma lahayn waa dukaanka kaliya oo wareega jiray oo Soomaalida wadanka Netherland degan alaabta guryaha ugu geen jiray marka ma guryaha geen jirtay mise baawur ayaad ku wada qaadi jirtay ama dadka sidee kula soo xiriiri jireen oo badeecada u qaybin jirtay dadka waxaan alaabta ugu wareejin jirnay gaariyan basan lahaan jiray waqtigaas alaabtana waxaan ugu geyn jirnay guryahoodii sidii markii ay soo dalbadaan qof walba telefoon soo dirsan jiray dalabkii soo dhiiban jiray marka guryahooda loogu geyn jiray marka ma hola kaliya aad u qaybin jirtay waqtiga hore mise sida Europeada kale sida Jarmalka saada aad ka dhawaajisay inaad siisaan exportigiina aad u qaybisaan Austria Germany Italia si badan baad wax badan baad markaas ma sidaad u qaybin jirtay mise waa ka duwanaan jireen shirkadda sideedaba waxay soo martay marxaladooyin kala duwan sida hadda ku sheegay shirkadda waxay ku bilowday inay guri geyn ay wax ku gado muddo laga hadda 2005 shirkadda waxay bilowday markii ay wareejintii ay wadankii laga bartay waxaan furay dukaan ku yaalo Bester Drink waa dukaankii ugu horeeyay markii hadda idin sheegay dukaankaas ayaa Soomaalida badaacada markii dambe u soo doona jireen laakiin Soomaalida fog oo degan gobolada kala dhaadheerna weliba waa loo geyn jiray alaabtoodana maadaama uu hadda dalka fiicnaaday ma laga yaabaa shirkadaada oo kale inaad ka furto dalkaaga hooyo axmed shiikhu horta wadanka hooyo waa lama huraan waana ku tala jirnaa inaan shirkadda aan Soomaaliya aan branch ugu furno oo sidaan hadda anaka wakiilada alaabaha badaacada aan wakiilada aan u nahay inaan xagga haddana u suuq geyno oo wadanka Soomaaliya ugu faa'iideyno axmed shiikhu waxaan magaasinka aan ugu jeednaa sida baastada Brimalucci iyo taangiye badan iyo waxyaal ma wakiil baad u tahay mise waad ka ganacsataa oo waa soo qaadataa su'aal fiican ayaan weydiisay marka su'aasha horta shirkaddan baastadan la dhahayo Brimalucci waxaan u ahay wakiil oo wadanka Netherland ayaa wakiil u ahay marka baastadaasna waxaan aan ku sii dhoofinaa Yurubta kale waan u qaybinaa taangiga saa sheegnay cabitaanka Tracyga iyo soorta iyo ayakana wakiil waan u ahayna marka shirkadaha oo leh cabitaanada ayaan la xiriirnaa ayaka noo soo diraan sidaasaan ku ganacsanaa axmed shiikhu
shaqaalaha ku shaqeeya ma Soomaali baa u badan mise waa ajnabiga waddanka u dhashay maadaama anaka shirkadeena ay ku saleysan tahay alaabta Soomaalida inaan gadno marka shirkadda waxaa ka wada shaqeeya waa wada Soomaali shaqaale kale oo ajnabi kuma jiro shaqaale badan oo Soomaali ah ku shaqeeya ha Ahmed Sheikhow إن الشركات ده أما مخازن كأجوبي الأهات هنشوفه الشركات ده Sheikhow Winkles ما حد قدان أو بضاعة أو هيسان sidaan hore kuugu sheegay anaka badaacada aan gadno waxay tahay badaacada ama waxyaalaha Soomaalida ay isticmaalaan sida baastada bariiska cabitaanada qaxwaha soorta wax walba oo Soomaalida ay ku bartay oo ku isticmaalaan Sheikhow Winkle marnaba lagama waayo إن أحمد Sheikhow dukaamada kale ee waddankan ku yaala Soomaalida leh badeecadaada ma iibsamahayaan ama ma qiibisaan ama ma ka iibisaan ha alxamdulillah horta waddanka Netherland markii loo fiiriyo shantii sano hore la soo dhaafay waxaan u filayaa dukaamanka waa ku yaraayeen maanta waxaan u filayaa dukaamanka aad iyo aad ugu badan yihiin marka anakana faa'iidadeena waxay ku jirtaa dukaamanka Soomaalida markay bataan anakana wax gelitaankeena aad u sii bataa dukaamanka hadda Netherland ku yaalo boqolkiiba 90 ama 95 badaan dhaho alaabta shirkadda Sheikhow Winkle ka qaataan ma jiraan Ahmed Sheikhow dad sidaada oo kale Soomaali ah oo wax ka soo dejiya waddankan Holland shirkadda horta badaacada sida Soomaalida saad hadda sheegtay su'aashan oo kale ma jiraan sababtoo shirkadda kaliya oo alaabta dibadda ka keenta sida Talyaaniga Turkiga Sacuudiga Imaaraadka wadamada qaarkood macna ma jiraan ilaa dukaamada waa dukaaman kaliya anaga Netherland waxay dhahaan road handle waa dukaan baqaar jumlad ah sida aan dadka u qaybino gudaha iyo dibadda wadamada saan adigna hore u sheegtay sida Talyaaniga Switzerland Sweden Norway Denmark wadamada Yurubna alaabta u dhoofina waqtiga hore Soomaaliya maxaad ka qaban jirtay oo maxaad ka ganacsan jirtay Ahmed Sheikhow la waqtigaas waqti aan la iloobi karin wayaan marka sidiisba shirkadda magacan Sheikhow u jiray Sheikhow spare parts waxaan waqtigaas aan iibin jiray gawaarida baabuurka sida Soomaali baabuurta laga isticmaali jiray marka shirkadda mar hore shaqeyn jirtay ma aha macna shirkad oo hadda Yurub ku bilaabatay magaca waagi hore waxa la dhihi jiray Sheikhow spare parts ilaa ay haddana shirkadaas spare parts ku shaqeeya alxamdulillah haddana waxaan rajeynayaa inaan sii xoojino saad hadda aan hor kugu sheego halkan waxaan ku soo xirnaa barnaamijkeena kobci ganacsiga oo maanta aan marti u ahayn Ahmed Sheikhow Winkles ayaa marti u ahayn halkan ayaan ku soo koobinaa barnaamijkeena Kamaldin Antarnaji Royal TV Holland